taliye ku-xigeenkii ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Maxamed Aadan Samatar ayaa xalay Muqdisho u geeriyooday xanuun in mudahayay. Generaalka ayaa la sheegay in muddooyinkii dambe uu la xanuunsanayay xanuun dhanka beerka ah oo intuusan dhiman loo qaaday wadamo badan si xaaladiisa caafimaad wax looga qabto, balse ma suurtagelin xalay ayuuna Muqdisho ku geeriyooday. Generaalka ayaa waxay wada dhasheen fanaanka Xasan Aadan Samatar, wuxuuna sidoo kale hayay generaalka ka sokow taliye ku-xigeenka ciidanka xilka madaxasaadka ciidanka cirka. مسؤولين كترسان دولة دحي وكمد yahay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Amar Dambe ayaa wuxuu ka tacsiyeeyay geeridii ku timid taliye ku-xigeenka ciidanka cirka oo xalay Muqdisho ku geeriyooday, wuxuuna alle uga baryay in naxariistii janno ka waraabiyo. Generaal Maxamed Sheekh Cali Dable Beelood oo ah taliyaha ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Kulmiye waxa uu ehelka generaalka iyo ciidanka cirka uga tacsiyeeyay geeridii ku timid taliye ku-xigeenka ciidanka cirka. sidoo kale Generaal Maxamed Sheekh Cali ayaa waxa uu ka sheekiyay taariikhdii uu ka yaqaanay Generaal Maxamed Aadan Samatar oo Muqdisho ku geeriyooday xalay. Generaal Maxamed Aadan Samatar الله ونحرسته هو تلي كحيين كعيدا كعركة أو في بخرين كيبو كوريودي لكن مدة هذا بقى بوجرنا وياه هذا وحنا تحسين قدريات لمان سراكيل حيينك ألف لدي دولة عيدا كعركة يا لمان خير هذا سمطر يا أغرابه ضمن يا الله هاي صبر إيمان الله نقصيه كتاب كيس بدك الله كسيه الذي الله صور هذه أنا كذا شيء تلاقي نوصل له والله يجرون بقى شيء وحق بيركه وهندي اللي سوعلي انت سو جردان aniga waxdaba waxyeenkayga aan aad isku dhaweyn markii intii laga soo celiyo dhaqaatiirta xabar la keenay way sheegeen oo waxay yiraahdeen ninkan adigu waxa uu sheegay laakiin xaaladiisa laftiisa tanada waa simatay laakiin ma rajadiisa ma fiicna waxa ku walaynay waxa ku fikirayeen inaan hadana bal Turkiga ka inoo warka waxay yiraahdeen meel ka soo geysay waxba laga soo qaban maayo Turkiga baa loo diray waxayna iska lagu soo sameeyay ayaguna jawaabtiisa marka tiisu sugay waqtigiisa baa tacaawud dhamaade wallahi dadkan waxa dadkii waradigu sideetamaadkii dhamaadkeedii ku soo biiray ciidanka oo Leyla Sargaal ka soo noqday Ciraaq ku soo bartay Sargaal wuxuu ahaa aad iyo aad dhinaca logistikada ama saadka aad iyo aad uga shaqeyn jiray haddana wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka iyo madaxa saadka labadaba isku hayay saraakiisha muddo dheer soo shaqeynaysa waa aad iyo aad u firfircoona waliba annaga waa tabayna anigoo taliye iyo saraakiisha kale iyo familkiisa waxa saaka lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu sameeyo generaalka Asqaran oo ay ka soo qayb gali doonaan madax ka tirsan dawladda dhexe saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale. wararka aan ka helino deegaano hoostaga degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. xiisada ayaana salka ku haysa kadib markii ay isku fahmi waayeen dadka deegaanka lacagta ay Al-Shabaab ka qaadayaan xoolaha ka cabaya ceelasha biyaha ee ku yaala deegaanada hadda xiisada ay ka taagan tahay. deegaanada ay xiisada ka taagan tahay ayaa waxaa ka mid ah Yaaq Bishaari Kaamjaroon oo dhammaantood hoostaga degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana ay maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen in ceel ku yaala deegaanka Yaaq Bishaar ay Al-Shabaab ku aaseen miinooyin sidoo kale miinooyinka Al-Shabaab ay ku aaseen wadooyinka soo gala ceelka ayaa waxay la qaraxday ilaa iyo 2 neef oo geela halka uu dhaawac ka soo gaaray qof ka mid ah dadkii geela la socday. Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa waxay isku haystaan lacagaha laga qaadayo xoolaha ka cabaya ceelasha biyaha isla markaana Al-Shabaab ay ku kordhiyeen lacagta dadka deegaanka. Al-Shabaab ayaa waxay neefka geela ka qaadayaan lacag dhan $4 halka neefka loodana ay ka qaadayaan lacag dhan $2 sidoo kale neefka ariga ay ka qaadayaan lacag dhan $1 kadibna dadka deegaanka ay arintaasi si ku lagu hor imaadeen. dadka deegaanka ayaa cabsi badan ka soo wajahday dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ka muujiyay cabsidaasi in wadooyinka ay isticmaalayaan xoolaha ay ku aasayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab miinooyin. waxaa inta badan cabasho ay ka muujiyaan dadka reemiga lacagaha ay ka qaadayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo aan xad lahayn.